waraxmatullaahi wabarakaatu. dadkii daawanayo dhammaantiinba waxaan jeclahay inaan ka hadlo hal arrin oo aad ii xanuujisay oo muddooyinkan dambe kusoo korortay magaalada muqdisho, taasoo ah inay soo baxeen burcad dhac u geysanaya dadka masaakiinta, gaar ahaan dadka waayeelada isugu jira odayaasha iyo hooyooyinka. burcadan ayaana waxay si farsameysan dadkaas uga dhacayaan lacagaha moobeelada ugu jira sida EVC Pluska. kooxahan ayaana ka howlgala qeybo kamid ah magaalada muqdisho, gaar ahaan suuqa bakaaraha ay tahay meesha ugu badan ay ka xariiftamaan. dhacdadii ugu dambeysay waxaan idin sharxi doonaa dhowr dhacdo. waxaan ujeedkaygu yahay si looga hortagi lahaa burcadaasi, loogana digi lahaa dadka waayeelada sida hooyooyinkiin, aabayaashiin, adeeradiin, awooyaashiin. fadlan muuqaalkan sheergareeya si dad badan ay u gaaraan burcadaasina howshooda u fashilmato. dhacdadii ugu dambeeyay ee burcadaasi geysato waxaa lagula kacay wadaad awoohay ah oo 80 jira. waxaa dhacday isagoo suuqa bakaaraha ku sugan in nin qurxoon iska soo dhigay oo buuran u yimid oo yiri adeer waxaan rabaa inaan lacag kuu diro oo shaashaa. qofkii markuu wuxuu isaga dhigay sida qof yaqaano. mobile uu ka qaatay, mobilkii markuu ka qaatay waxa uu sameeyay lacagtii ku jirtay lacag ka badan $200 uu ka gadistay. awoohi marka mobile kale hadana haystay uu ka qaaday lacag ugu jirtay uu ku aruursanay lacag adiga isku geyn labadii mobile markuu lacagta ka dirsaday hadana wuxuu sameeyay binkii uu gubay uu ku celceliyay shirkadii way xayirtay. awoohi wax wara kama haayo. lacag meeshaas waxa looga qaatay lacag gaaraysa $360 labada telefoon ugu kaydsaneed. wuu iska soo baxay mooto soo raacay xaafadda markuu yimid oo lacag dirmaay wuu shaqeyn waay. isuu yaaban mobilka markii la fiiriyay lacag ma ku jirto, maba shaqeynayaba. shirkadii la waxay warnay saas lacag ma ku jirto, markii la baar waxba kuma jiraan. mobilka kale la fiiriyay lacag kuma jirto. awood dadka ma taqaana waa qaana wiir markii hore dad saas waa umleen hadana ma garanayo wixii ku sameeyaan lama garanayo ilaa hadda. waxay yaqaanaan isaga dhigeen in sarcaad ma lagu sameeyay ma garaneen. waxaa kale oo iyadana jirta sidaas oo kale lagu sameeyay islaan waayeela oo iska reer baadi ah magaalada muqdisho daaweynay u timid eeladeeda lacag yar u aruuriyeen iyadoo suuqa bakaaraha mareysa. ayaa nin qabtay wuxuu yiri eedo waxaan ahay qof qurbaha ka yimid inaan safraan rabaa, inaan ii duceysaan rabaa, lacag $50 ku tuura mobilkaaga ii dhiib. mobilku ka qaatay lacag yar oo 100 iyo xogaa ugu jirtay oo ka dirsaday. eed waa ku diray ii soo duceey. duqda iyadoo duceynayso qeyr Allah ku siiyo hortaada, qeyr Allah dhigo, shar Allah ka haayo ay ka soo tagtay. mobilkii markii tii ii fiiriyay ilmaheedii waxba kuma jiraan. waxaa kaloo dhacday oday asiina 80 jir aan ka yareen oo xamaali tan uu xanuun badan waay. dhagaxaan ka shaqeeya caruur yar yar uu dhalay ka korsanahay. lacag ugu jirtay isagana sidaas oo kale inta loo qabtay adeer mobilka waxbaan ka wacana la yiri alay gadistay. arinta kale oo ayadana jirtay ku qaraabtaan waxaa kamid ah wadaad kale oo qaraabanahay oo laamiga Daynile ku lugeynaya waxa dhacday dhalinyaro caasi wadatay inay u istaajeen. adeer soo bax horaan ku sii qaadaynay dheen. way soo qaadeen markii baabuurku ay soo raaceen oo soo socod waxa la yiri inuu hebelow idhi mobilka hebelan u cilaa man iga qabanaya. inuu lacag ma ugu jirto mid walba lacag uma jirto. wadaadkan marka wuxuu sameeyay maadaama dadka asxaan u sameeyeen mobilkiisu u dhiibay oo yiri bal lacagta ka waco. waxa uu canaal iska diray lacagta laga dirsaday ma laga qabanaan leh. argada Daynile lagu dijiyay uu iska baxay caasi u raacay bakaaraha markuu tagay lacag ma ugu jirto. marka burcada noocaana oo waayeelada waliba dadka masaakiinta ay jidadku taagan yihiin inta aniga si qaasa dad ehelka ay ku dhacday waay. inta dad ay ka badan ay ku dhacdaa ka sii badan. marka waxaan jeclaan lahaa burcada noocaasa waayeelada haddii gaarto muuqaalkan ha loo shido hala tuso ka digtoonaada. mobilkiina cidna haysaga dhiibina, waayo saxana sameynaysaa dadaan ka wacana intay ka talacaan ku shina lagu leeyahay lacagta kugu jirta la gadisana. man garanayo sabab qaabka lambarada waayeelada inta badan hal 2 4 waxyaabo fudud waay. marka burcadaasna war Ilaahay ka cabsada ayaan leeyahay. waxa aad sameeynaysan waa xaraan qadcana. waxa waade laga yaabo inaad caruur aad ku korsanaysaan adduunyada qasaaraad idinku tahay xoolo masaakiina oo qaarkood in agoon leeyin laga yaabo aad cunaysaan. caruur rabtaan ka korsataan aakhirana waxa xisaaba idin sugaya. war Ilaahay ka cabsada. shacabka Soomaaliyeed waxa ugu baaqi lahaa dadkaas in laga digtoonaado. waxay dhacayaan kaliya ma ahan dhalinyaro maba dhacaan. dhalinyaro waa telefoonkooda lacag kuma jirto badanaa. kii ku jirtana uu fahmaa uu iska diidaa. laakiin dadka waayeelada 50 70 60 ka badan ee masaakiinta ay aaminsan yihiin in lacag heli karaan
dadkaasay dhacayaan marka insha allah laga digtoonaado burcadaas cusub soo korortay tuugadu way noocyo badan tahay way qaabo badan tahay waxa waay magaalada waa la buuxa waa la soo galay marka aniga waa gacaleeman waxaan jeclaystay maanta arintaasi soo laalaabatay in aan bulshada Soomaaliyeed uga digo si ay dignin ugu noqoto burcadaasina ay u noqdaan kuwo fashilma arintooda laga daba tago kaaga daran lacagta telefoonada ay ku dirsanayaan ma hormuud waxa sahli in lacag badan ay xadaan waxa kamid ah telefoonada somnetka ay lacag ku wareegsanayaan kuwaas markii tixraac la sameeyo magac been ah ku qoran laakiin hormuud markii ku dirsadaan waa la tixraaca lambaradu la xiriir shirkadda wax bay ka qabanaysaa laakiin shirkadda marka u dacwooto oo dadka waayeelada ay tagaan ehladooda waxa la leeyahay somneda lagu dirsaday waxana waa laga baxay shirkaddan waxba kama qaban karto marka walaalayaal waa laga digtoonaado burcadaasi ilaahayna ummadda ka qabtaan waana maasantiin muuqaalkana sii shargareeya aadan u maasantiin